dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan jecelahay marka ugu horeysa Dr. Liibaan inaan ku bilaabo sida la socotaba xalay waxaa isfahan gaaray madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble oo waayidii ugu dambeeyay khilaaf saameyn ku yeeshay doorashooyinka hanaankii u socdeen ee ugu dhaxeeyay waxaad iga warantaa 6 qodob baa lagu heshiiyay sida heshiiskan uu muuqdo iyo waqtiga uu yimid sidaad u aragtaa bismillah waa maasan tahay runtii waxay la tahay in heshiiskan uu yimi heshiis waqti aad iyo aad yani loo sugayay inay ahayd oo doorashooyinkiina ay ku dhaceen dibdhac aad u weyn loona tiirinayo dibdhacaas inay qayb ay ka ahayd khilaafka madaxda sare ay ka ahayd ayuu yimi heshiiskan wuxuu yimi dadaalo fara badan oo ay wadeen dadkii siyaasiyiinta ahaa madaxweyne Qorqoor iyo dadkii kale ee siyaasiyiintii Soomaaliyeed iyadana ay ka qayb qaateen waxaa kaloo meesha ku jiray cadaadis weyn oo beesha caalamka ka soo dhacday ayay ahayd hadda toddobaadkii la soo dhaafay safarada aad bay ugu kala gooshayeen labada mas'uul iyo tiimamkooda aad bay mataqaana ula hadlayeen marka in la galo doorasho loo yani ayagoo heshiis ah in ay fududaanayso haddii kala caqabad ay jirayso marka intaas dambana waxa isagana laf dhabar ka ahaa madaxweyne lafta gareen ayaa isagana door kaalin weyn ka qaatay marka dhammaan waxyaalaha ayaa waxay keeneen in ay heshiiskan uu yimaado heshiiskan waxaan oran karaa haddaan soo gaabiyo waa heshiis macquul ah labada dhinac oo la gaari karay muddada ka horba oo la soo hadalhayay laakiin cadaadis kadib iyo duruufihii oo adkaaday dadka kolkay arkeen unbuu heshiisku yimi laakiin waa heshiis dhinac walbaba uu tanaasul uu ka sameeyay qodobadii la isku hayay laguna heshiiyay in amniga iyo doorashooyinka doorashada la galo amnigana la sugo oo degdeg lagu sugo jagooyinkiina sidii aad maqasheen ayaa lagu xaliyay marka waxaan isleeyahay waa xal laga gudbi karo oo muhiim u ah marxaladan watahay Ibrahim Mahad Allah waxa tahay siyaasi la soo shaqeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda Muqdisho joogto madaxweyne Farmaajo uu hogaaminayo gobolka Banaadir aad kala shaqeyso bal waxaan rabaa markii aad fiiriso heshiiskan 6 qodob ka kooban ee xalay la gaaray siyaasi ahaan sida uu kula muuqdo iyo haddii ay suuragal tahay in khilaafkan sidan lagu soo gabagabeeyay oo san khilaaf kale iman karin marka aragtidaada fiiriso marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jiray dooda iyo wariye Cabdi Casiis Barrow iyo Soomaalida dhegeysanaysa dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii aan soo laabto su'aashaada xalay waxaan dhageystay qoraal saxaafadeed uu akhrinayay afhayeenka xukuumadda federaalka macallimow waxay ka koobnayd 6 qodob 3 qodob ayaa waxay macnaha muhiim ahayd oo kala ahaa arintii macnaha in laga heshiiyay wasiirkii amniga iyo taliyaha nabadgelyada iyo in la sii wado doodii dacwadii Ekraan Tahliil qodobada kale waxay ahaayeen amniga sugidda la dagaalanka shabaab iyo doorashada in macnaha la dejiyo runtii horta in guud ahaan in la heshiiyo waa wax fiican waaye waxay u fiican tahay dalka waxay soo dadajinaysaa doorashada waxa horta rabaa inaan ugu faa'iideysto fursadan qaaliga ah inaan u hambaliyeeyo siyaasiyiintii ka soo shaqeeyay waqtiga badnaa geliyay juhdiga geliyay u xirtay dhabarka in xal waara laga gaaro khilaafkan baahay oo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta hareereeyay mudane madaxweyne Qorqoor iyo mudane madaxweyne Cabdi Casiis lafta gareen oo waxaan rabaa in ay waa masatiin waxa ka shaqeysay wax aad u fiican haddii aan u soo laabto heshiiska waxay la tahay inuu noqon doono dhaqan gal haddii ay daacad ka yihiin waaye wixii macnaha xalay lagu heshiiyay waxay runtii siinaysaa fursad in ay dhacdo doorasho in dalka uu ka baxo hubinta la'aanta taagan ilaa iyo macnaha muddo ku dhow sanad laakiin haddii la heshiiyo waxa daba yaalo wax la yiraahdo hor socod waxa loo baahan yahay marka qodobadii lagu heshiiyay in ay laga amban qaado oo labada dhinac ay heshiiyay daacad ka yihiin dalkana uu ka baxo hadda si uu yahay
waa gartay farxan markaan dhinacaada u imaado kulley waad la socoteen xaaladda siyaasadda waddanka uu ku jiray cilmi baarisna waad ku sameynayseen siyaasadda soomaaliya ka macad ahaan waxaan rabaa heshiiska la gaaray iyo waktiga uu kusoo beegmo marka aad fiirisaan muxuu uga dhigan yahay soomaalida cabdicasiis barrow v o eda iyo saaxiibada gurjir dooda iyo soomaalida waa salaama heshiiskan wuxuu kusoo beegmay xilli muhiim ah xilli dadka ay u baahnaayeen inay dhagahoodu maqlaan war fiican warkaasna wuxuu ahaa war dadku u riyaaqeen oo ka qaaday culays fara badan warkaasi wuxuu ahaa mid rajo iyo diilo ku abuuray soomaalida oo culays fara badan ka haystay iyo cabsi badanna ay la soo daristay kadib khilaafkii ka soo muuqday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiskan waa heshiis suurto gelin doona haddii fulin la raaciyo in doorashada oo in badan dibdhac ku yimid horay loo sii socodsiiyo doorashada oo dabcan dowladii ay qabteen guddiga doorashada heer federaal waa la dhaafay waqtigeedii waxaysan caqabad ku ahay hirgelinta doorashadaas khilaafkan u dhaxeeyay labada dhinac oo muhiim oo isku hayay arrimo muhiim ah hadda haddii laga heshiiyo waxyaabihii ugu muhiimsaneed ay isku hayeen ismarkaasna ay raacsiiyeen fulin rajada way fiican tahay waxaana meesha ka bixi doonta sabab aada u weyneed oo loo aaneynaya dibdhaca doorashada oo ahayd khilaafka siyaasiga ah ee dhex yaala madaxweynaha ra-iisul wasaaraha arrintani waa fursad fiican waa fursad waxay u abuureysaa in doorashadii ay ka shaqeeyaan dadkii farsamada waxay fursad u tahay dadkii musharaxiinta dadkii tida kale bulshada caalamka ruuxeedana waa arrin ay ku farxaan maadaama ayaga ruuxoodu ay baaqiyo joogto ah ay sameynayeen si arrintan loo xaliyo marka arrintani waa fursad fiican marka waxaan rajadu waxay tahana in doorashadii ayadana in la gudagalo oo la qabto lagana shaqeeyo waa gartay professor liban maalmihii ugu dambeysay ururada bulshada rayidka haddii aad tihiin waxaad soo saaraysaan waraaqo oo aad ku sheegaysaan inaad aada uga walacsantihiin xaaladda dalka iyo dib u dhaca doorashooyinka iyo khilaafyada jira marka laga hadlayo doorashada soomaaliyana ma cusba khilaafyo xal laga gaaray haddana dib khilaafyo kale usoo baxeen haddii hadda heshiiskan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu xalay ay gaareen miidan la tahay inuu noqon doono khilaafkii ugu dambeeyey ay saameyn ku yeesho doorashada soomaaliya hore loo dhaqaaqi doono cabdicasiis waxay la tahay hadda doorashooyinkan socda waa doorashooyin lagu wado nidaamka doorashada dadban mana aha nidaam ku salaysan sharciga iyo qawaaniin ku socda ma aha waa nidaam saldhig uu yahay wada hadal iyo is-afgarad oo is-afgarayadii lasoo yani mar walbaba laga dhiganayaa meesha marjic laga dhiganaya maadaama wixii afgarad uu yahay afgaradku wuxuu u baahan yahay calalaqal dad wada socda marka wada socoshada wuxuu heshiiskan muhiim ugu yahay meeshii madaxdii ugu sarraysay ee saldhigga u ahaa ee khilaaf hadduu yimaado waana dhici kartaa inuu yimaado manta oo howlaha doorashada lagu jiro oo meeshii noqon lahayd dadka isku soo celin lahaa ayaa khilaafka uu ka yimi waad la socotaan madaxweynuhu inuu yani si uu prime ministerka heshiiskii ugu dambeeyey lagu gaaray in isagii mas-uuliyaddiisii si taam uu u qaato amniga isaga iyo sugitaankeeda iyo doorashooyinkii in la sameeyo marka isagii iyo hadda madaxweynihii hadduu khilaaf uu ka dhaco waxaa dhici karaa dadkii iyo kala jiidasho ha noqoto dhinacyada kala duwan iyo waxba laakiin iyagoo calalaqal hadday iyagu isku yani si guud ay ku heshiin yihiin doorashada in la wado heshiisku siduu ahaana inuu prime ministerka uu hogaamiyo hadday sidaa ku socoto waxay ila tahay waxay yaraynaysaa caqabad weyn oo ahaa fulinta ayay yaraynaysaa in ay wax soo baxayaan mar walbaba la toosinayana heshiisyadii la galay nafteeda ayaa sheegayay oo waxay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran inay bishii mar ay wada kulmaan laakiin waxaa muuqata in dhoweyd in la wada kulmin maxaa keenay lanna khilaafkan xooggan baa yimi arrimo kaleoo amni ahna way soo dariseen oo hadda gobolka galmudug oo kale waxyaalahaasoo dhan dadka waxa ay keeneen inay dib u dhac ay keentay marka waxaan isleeyahay khilaafkan oo labadooda heshiiskan ay heshiiyeen iyo arrimihii ugu waaweynaa ee laisku hayay in ikraan tahliil loo daayo cadaaladda
in wasiiradii iyo meelihii la isku hayay in mataqaanaa yani siday loo kala magacaabay ay labada dhinac isugu tanaasulaan iyo in ay ku wada heshiiyaan in doorashooyinkii si degdega loo sameeyo amnigana si wada jira loo wada sameeyo waa qodobo ana waxaan is oran karaa asaasi u noqon kara inuu dhaqaaqo hadduu khilaaf yimaadana waxaa weeye madasha wada tashiga qaran ayaa hawsha ay u taallaa. Ibrahim mar kale haddii aan dhinacaada soo jaleeco waxyaabaha lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur labada dhinacba ay u aqoonsadaan inuu yahay wasiirka rasmiga ah ee amniga dowladda Soomaaliya ka shaqeyn doona ama wasiirka ammaanka. Waxaan rabaa bal inaan fiirino qodobada la gaaray heshiiska siyaasadda ammaanka la xiriira sida wasaaradda ammaanka hay'adda nabad sugidda oo kale in muddaa waxay ahayd waxyaabaha ugu culus oo khilaafkan salka ku hayay. Markaad aragti ahaan fiirisaan maxay idin la tahay in wax hore looga heshiin karay waqti dheer kadib in ugu dambeyntii iyada loo yimaado la iska garto? cabdicasiis horta khilaafka wuxuu ka dhashay sidaan la socono markii xilka laga qaaday wasiirkii amniga oo ka qaaday ninkii magacaabay prime minister Roble. sidaan la socono sharciyan dastuuriyan ra'iisul wasaaraha wuxuu xaq u leeyahay inuu wasiir magacaabo xilna uu ka qaado. wuxuu kaloo xaq u leeyahay inuu ka qaado taliyaha nabad sugidda ra'iisul wasaaraha. ma aha markii ugu horeysay waxaa dhacday in ra'iisul wasaarihii hore Cabdul Sheekh Axmed uu ka qaado taliyaha nabad sugidda oo xilka. laakiin maxaa meesha ku jira? Soomaalidu waxay tiraahdaa cayaar maxaa habeenka loo tumaa haddii aan wax ku jirin. sababta focuska loo saarayo amniga maxay tahay? hadda waxaa lagu jira xaalad kala guur ah dalka wuxuu aaday xilligii waxaa lagu jira doorashada. maxaa focuska loo saari waayay dalka inuu doorasho ay ka dhacdo xor ah? sababta amniga loo saarayo oo madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaare ay isku dhigeen hay'adaha amniga wax meesha macnaha ku jira waay oo qof kastan ay su'aal ay ka keentay maxaa jira maxaa wax kale macnaha loo qaban waaye dalka maxaa si uu yahay loo dhaqaaji waaye. isku soo wada duub haddii hadda la isku fahmay waa wax fiican. waxay daaha ka furaysaa runtii inay doorashadu ay jiha aado. inkastoo hadda ay soo baxeen aqalkii sare oo afartii ugu dambeysay oo shalay soo saaray madaxweyne Axmed Islaan Jubbaland oo 52 ayaa maanta xaadir ah. waxaa dhiman 2 senator oo ku dhiman Galmudug State. ayana waxaan rajeynayaa insha Allah inay maalmahan soo socdo ay soo saari doonaan. inkastoo hadda xogaa xaalad amni ay jiraan laakiin naftoodu waxay mudan yihiin maamulada madaxweynayaasha in lagu ammaano inay dardar geliyeen oo ayaguna weli dhaqaalihii aan helin iska xil ay iska saareen in macnaha dalku uu ka baxo xaalad uu hadda ku jiro ayagu ay soo saareen aqalka sare. marka waxaan rajeynayaa inay ku xujiyaan baarlamaankii oo runtii haddii daacad laga yahay oo in ay ku dhamaan karto muddo ka yar 20 cisho. haddii hal magaalo laga dhigo iyo haddii laba laga dhigo baarlamaanka ugu badnaan wuxuu qaadanayaa 20 cisho. marka waxaa laga maarmaan ah in madaxdu ay fahmaan in la joogo xaalad khatar ah dalka hadda sida aan wada ognahay amnigii macnaha wuxuu ka baxay faraha. meelaha qaar waxaa la leeyahay nimankii ahaa nabadidka canshuurey qaadan dadka Soomaalida dhib badan ayaa haysta kumana sii jiri karaan runtii xaaladda hadda ay ku jiraan. marka waxaa la rabaa in danta gaar ahaaneed intii gees la iska dhigo wixii loo dhaartay iyo kitaabka la mar oo ah in dadka loo adeego macnaha ayaa loo baahan. waa gartay Farxan haddii aan fiirino heshiiskan waxa uu imaanayaa xilli ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo wada socday arrimo la xiriira doorashadii iyo ammaanka khilaaf ka bilowday muddo ay ku kala tageen ilaa ugu dambeyntii xal la gaaray xalay. madax kala shakisay oo siyaasad ahaan kala tagay oo warqadihii aad ogeyd baraha bulshada iyo warbaahinta isu marinayay soo saarayay ma kula tahay inay si fudud kalsooni u soo celin karaan oo ay ku wada shaqeyn karaan? cabdicasiis oo kalsoonida waa la soo celi karaa. markii hore waa khilaaf haduu yimid khilaaf waa dabiici dad wada shaqeynaya khilaaf waa imaana. khilaafkana xalintiisu waxay leedahay mechanisms loo maro.
Soomaaliya laakiin dabeecadda xukunka iyo siyaasadda ayaa waxay tahay hadda waa mid ku jirta transition ma jiraan hay-ado dastuuri ah oo markii madaxdu iskhilaafaan lagu kala baxo sida maxkamad dastuuri ah taa marka waxay keentay in khilaafkoodu aysan jirin cid xakamaysa haddase mar haddii heshiiyeen oo ay ku heshiiyeen wax isku haysteen waa dhici karta inay iskhilaafaan khilaaf wuu imaan karaa waana dabiici wax celi kara ma jirto laakiin waxay ku xiran tahay sida labadoodu ay daacad ugu yihiin ayna xilkasnimo u muujiyaan in xaaladan ay ka saaraan wadanka oo wadanka markaad fiiriso doorasho ku jira ra-iisul wasaarahana mandate wuxuu leeyahay cayiman oo ah in wadanka uu ka bixi doorashadii uu xaqiijiyo oo doorasho uu qabto madaxweynahana isaga awoodda oo doorasho qabashada iyo ammaankan wuxuu ku jira wasaaraha marka inay isku ixtiraamaan laba dhinacba shaqooyinka ay leeyihiin isla markaasina ay muujiyaan xilkasnimo xilligan in shaqaduhu u socoto marka haddaan u fiirno way iskhilaafeen warqaday soo saareen bosiishano mataqaanaa fogay qaateen waxay muujinaysaa annaga ruuxana waxaan muujinaynaa quus iyo rajaxumo marka warqadahay soo saarayeen waxay ahayd mid kasta mid uu ku adkaynayo mowqifkiisa haddase waa la xali khilaafkii way heshiiyeen haddii heshiiyeense waxay u muuqataa insha allah inaysan arrintan soo laaba doonin waana dabiici khilaaf waa imaana laakiin xaddig uu gaaray wuu ka yaraan doona hadduu yimaado professor liban isla su-aashaasi mid u dhiganta haddii aan ku weydiiyo ma kula tahay heshiiskan la gaaray xalay labada dhinac ay wada aqbaleen ay garwadeenka ka ahayeen madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo kale markii aad fiiriso in si fudud kalsoonida loo hanan karo madaxda ay si fudud u wada shaqayn karaan iyadoo la ogyahay waxay dhacay cabdicaiisan waxay la tahay sida saaxiibay uu tilmaamay run ahaantii khilaafka waxyaalo looga heshiiya waa jiraan ta kalena waxaan isleeyahay hawsha dabeecaddeeda nafteeda oo kala duwan ayaa qayb ka qaadan karta inaanan khilaafka labadooda calal aqal usan kusoo noqon sababtoo ah hawsha hogaaminteeda waxaa u xil saaran prime ministerka iyo maamul goboleedyada ayaa u xil saaran guddigii doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleedna way dhisan yihiin tajrubo waxaa laga soo qaatay aqalkii sare ergooyinkii iyo in mataqaana xagga la aado ayay u badan tahay marka dhinacyo kale haddii hadda aanan dib loogu noqon magacaabis cusub iyo maxaa la yidhaha waxyaalo kala ka qaad iyo taana waxaan u maleeya waa tajrubadii hadda laga soo gaaray caalamka dhan iyo dadkii oo dhan ay aada ugu taliyeen marxaladan waxa focuska la saaraya inay noqoto keliya electionka marka waxaan isleeyahay marxaladan la joogo waa lagaga gudbi karaa heshiiskan wuxuuna noqon karaa saldhig laakiin haddii la muujiyo niyad sami xoog badan haddii la muujiyo waxaan isleeyahay waa heshiis ee soomaalida dhan ay u oomanaayeen oo la wada sugayay xataa bulshada caalamka oo rabta yani oo nagaga maqan tahay maalan dhaqaale siin iyo yani garab istaag nafteeda waa dhici kartaa inay ku dhiirato mar haddii ay khilaafka ka noocan oo uu ka baxo anigu waxaan isleeyahay si walbaba ha loo fiiriyo dhinacyada oo dhanba win-win situation buu u yahay dhinacyada ibrahim heshiiska waxaa ku jiray in hay-adaha cadaaladda loo madax baneeyo kiiska ikraan tahliil iyaga hay-adaha nabadgelyada ama ammaankuna ay kala shaqeeyaan markii aad fiiriso lahjada qoraalka ku qornayd iyo sida loo dhigay qodobkaasi maxaa laga dhex akhrisan karay horta qoraalka qaabka loo akhriyey iyo sida xaqiiqda ay tahay waxaa is leeyahay waa laba kala tahay inta badan hadal la siyaasadeeyey macnaha ayuu ahaayo la leeyahay waa in cadaaladda loo daayaa ilaa maalinka hadda soo baxday kiiskan gabadhan la dilay ikraan maqan qof walba hadal wuxuu leeyahay waa in cadaaladda loo daayaa cadaaladana macnaha oo heshay amba qof loo dacweeyana oo ma jiraan haddii aan usoo laabto arrinkan macnaha kale horta xilli kasta oo gabaabsi ay joogto dowladda waxaa dhacdo isqabqabsi laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay xukuumadihii hore waan joognay ilaa iyo muddo dhowr macnaha madaxweyne oo waqtiga macnaha ka dhamaaday iyo madaxweyne cusub oo la dooranayo laakiin kan wuxuu kaga duwan yahay isqabsiga wuxuu abuuray
in xaalad khatara la galo in dalku uu ka dhaco khatar uu galo inuu ka dhaco dagaal sokeeye taasoo keentay xukun jeclaysi taasoo keentay muddo kororsi waxaasoo isbiirsaday ayaa horta waxaa keenay macnaha khilaafka macnaha gaamuray runtii waxaa xusuus mudan ra-iisul wasaaraha hadda joogo iyo madaxweynaha in markooda hore ay labadoodaba ay raalli ka ahaayeen in macnaha waqtiga la kordhiyo oo ay wada joogaan laakiin markii ciidamo hubeysan ay magaalada ay yimideen runtii dalkii oo maaragtay loo baqay waa tii laga noqday maaragtay xilligii muddo kororsiga waa tii ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo xukuumadda iyo amniga iyo siyaasadda amniga guud iyo siyaasadda inuu asigoo hogaamiyo marka waxaa meesha ku jira waa lagu wareejiyay af ahaan laakiin madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu ursa oo la qabsado prime ministerka oo asiga sida uu rabo uu jecel yahay doorashada iyo qaabka uu kasoo noqon karo in loo qaabeeyo taasaa marka waxay keentay horta macnaha arrimahan iyo maaragtay arrimaha hadda macnaha taagan haddii laakiin lagama quusto xal haddii xal la helay oo anigu haddeen ka hor dhicmayno balaayo saadimayno haddii xal la helay waa wax fiican dadkana udana dalkana macnaha dadan u ah dalkan Soomaaliya dad baa fiirsada oo la yiraahdo macnaha beel xaalan dhaqaale badan galiyeen 14 sano in ka badan 16 sano ku dhawaad ayaa waxa joogay ciidamo Amazon waxa ku baxay intaas billions lacag aad u badan marka ma noqon doono dalkan Afghanistan oo kale sida Kabul wixii macnaha ka dhacay ma noqonayso waa dal ku yaalo meel istiraatiiji ah waa dal ku yaalo leh macnaha bad ugu dheer macnaha Afrika wadanka macnaha labaad waa dad kheyraad macnaha waa dal kheyraad laga sheegay waa dad macnaha dihan waaye oo u baahan in macnaha laga faa'iideysto marka intaas barasharkaas waxa keenay markii macnaha beesha caalamka iyo arrimaha ay soo galeen ayaa heshiiskii ay ku qasbanaadeen inay qaataan marka wax fiican waaye waxa leeyahay heshiiska si wada doorashada qabta dalka madaxweyne cusub ha yeesho dalka xukuumadda ha ka baxo soo dhaweynayna sida aan la soconaba khilaafka taagan waxa uu dib u dhigay dhaqaalihii laga filayay beesha caalamka oo ahay doorashada in lagu qabto hadda xaaladan la galay cusub suuragal ma tahay in la helo dhaqaalihii doorashada loogu talagalay oo laga filanayo beesha caalamka inay bixiso isla markaana doorashooyinkii si rasmi ah oo hufan aqalka hoose loo bilaabo waliba iyadoo la eegayo xaaladii la soo maray dib u dhici cabdicasiisow khilaafkan hadda la soo afjaray oo heshiis la gaaray dhimantahana fulintiisa wuxuu noqon doonaa mid ka saara meesha marsihi ahayd doorashada qabshalaanteeda ama dib dhaceeda dhinaca marka laga hadlayo maaliyadda iyo miisaaniyadda loo qoondeeyay in doorashada lagu qabto bulshada caalamku dhinacooda waxay leeyihiin inagu lacagtii loogu talagalay waan bixinay waxay ku dhiman tahay dowladda ku meel gaar dowladda federaalka Soomaaliya inay bixiso dhinaceeda qoondadii ay u qoondeysay doorashada inay ku biiriso taa marka waxay saar doontaa culays ra'iisul wasaaraha ama xukuumadda si guud in ay keenaan ay diyaariyaan ay ku biiriyaan dhinacooda lacagtii looga baahnaa marka bulshada caalamka xukuma dhimana si ay u sheeganayaan waxoodii way bixiyeen way gudbiyeen laakiin arrintu waxay ku dhimantaa dhinaca xukuumadda Soomaaliya inay keento qoondadii doorashada loogu talagalay marka awalba arrintan ka hadalkeeda waxay u rahansaneyd ama caqabad ku ahayd khilaafkan siyaasiga mar hadduu meesha ka baxay marka miiska waxaa imaan doona dooda in qoondadii dowladda laga rabay ay keento ay imaan doona Dr. Liban marka la hadiyaan dhinacaada u imaado waxaa jiray aqalkii sare oo 54 mudan oo baarlamaanka ka tirsan aqalkaasi la dooranayo waxay qaadatay waqti aad u fog dad fara badan oo Soomaaliyeedna qaarkood waxay dhaliileen hanaankii loo maareeyay maamulada qaar ee xubnihii soo baxay 275 mudane oo aqalka hoose ah ayaa la rabaa in la doorto iyadoo haddana khilaafkan uu laga soo baxay markaad eegtaan waqtiga ay qaadan karayso iyo sida doorashooyinka u hufnaan karaan iman doona maxay idin la tahay waxay la tahay horta haddaan kala qaadno doorashada aqalka maxaa la golaha shacabka hadda la dooranayo wuu ka ballaaran yahay waana waxa dadka ka qayb galayana aad buu uga ballaaran yahay oo ergooyin kala duwan oday dhaqameedyo iyo waxyaalaha ayaa ka wada qayb galaya marka diyaar garow aad u fara badan ayuu dhinacaas diyaar garow uga baahan yahay
laakiin kolka la yidhaahdo beesha waxa la yidhaahdo sidee waktiga ay qaadan karto kolka la fiiriyo waxay ku xiran tahay laba shay bay ku xiran tahay. waxay ku xiran tahay dhaqaalaha waa qayb runtii arrintii uu tilmaamay dhaqaalaha way jirtaa laakiin oo la yiri qaybta beesha caalamka anaga qaybteena waa dhiibnay laakiin qaybtii dawladda ayaa haray. dawladduna waxyaalaha ay xukuumadda isku haleynaysay in badan waxaa ka mid ah lacagaha fiiga ee laga qaado dadka tartamaya. laakiin doodaha ugu badan hadda golayaasha dhex yaalla waxay tahay in fiiga la qaadayo waqtiga uu imaanayo inaanan la hubin. sababtoo ah qofka murashaxa ah waxaa laga yaabaa 3 casho ka hor ama 2 casho inuu keeno qaarkood inuu ka tanaasulo. marka waa dhaqaale aan la isku haleyn karin oo aanan lagu dhisi karin laana urgooyinkii iyo diyaarintii waqti dheer ayay u baahan tahay. laakiin waxaa jira dadaalo fara badan ee xukuumadda iyo kulli la galay oo bal in Soomaaliya kaalmo ay hesho. xataa waxaa nagu maqaalo ah prime ministerka safarkii uu ku tagay Qatar nafteeda in la yiri bal haddii election socda iyo heshiis wax la wada socdo haddii ay jiraan anagana kaalmada qayb baan ka qaadanaynaa. marka dawlado badan oo ka qaadanaya way jiraan. waxay isleedahay caqabadaas waa laga gudbi doonaa. haddii dhaqaalahaas la waayo ama sida hadda beesha caalamka laga waayo Soomaalidiina aysan dhaqaalaheeda aysan haysan waxa ay qasab noqonaysaa sida yani xoogaalnimaduna ay tilmaamayso in kuraasta haddaan dhahno la kiskiseeyo sida aqalka sareba loo kiskiseeyay gobolada qaarkood. in la yiraahdo 10 iyo dhowr baa hadda soo baxaya kadibna waxaa la yiraahdaa kuwa kala soo baxaya hadba dhaqaalihii sida loo helo. taana waxay keenaysaa inay jiitanto 2 bilood oo soo socda bal waxaa dhici karta inay ilaa January inay jiitanto. laakiin dhaqaalihii oo is haysta haddii la helo khilaafkan siyaasigana meesha uu ka baxay waxa kaliya oo haraya waxa weeye fulintii oo badasha qaranka ay go'aan ku gaareen habraacoodii weli ay ka qabeen murashaxiintii iyo siyaasiyiin badan oo kuraasta ku tartami lahaa ama yani ka rajaynaya inay meelaha dad ay ka helaan ayaa ka qaba oo ah habraacaas habraac boqolkiiba yani xoogga siinaya maamul goboleedka xilista isaga siinaya oday dhaqameedyada uu ogol yahay uu meesha keenayo civil society-ga hadda yani ma aha civil society-ga caadiga laga wareysanayo waa kuwa iyagu beesha ah weeye. marka kulli waxaasoo dhanba waxay keenaysay habraac ay iyagu raali ka yihiin. marka habraacaas hadduusan dhibaato aysan dhacuusan keenin iyo buuq qabaa'ilka xaggooda ka yimid hadduusan keenin arrintan dhaqaalaha haddii meel la saaro ani waxay ila tahay doorashada way soo degdegaysaa. haddii arrintaa la waayana way jiitamaysaa. waxaa laga yaabaa 3 bilood iyo 4 biloodba inay gaarto ay sii qaadan karayso. waa tahay Ibrahim ma kula tahay haddii aqalka hoose durbaba la bilaabo sida la sheegay oo dhowr maalin kadib qorshe uu yahay in la guda galo ma kula tahay in waqti kooban uu ku dhammaan karo adigoo ka tusaale qaadanaya waqtigii uu qaatay aqalka sare oo 54 xubnood oo kaliya la dooranayo 275 marka la fiiriyo waqtiga ay qaadan karayso iyo xaaladda Soomaaliya maxay kula muuqataa? horta laba arrin baa taala meesha mid ugu muhiimsan oo hadda Soomaalidu ay saaraan focuska waxa weeyaan in la helo dhaqaale la helo. dalkeena horta dal weyn oo population aad u badan oo degan ma aha sidii Mareykan oo kale ama wadamada macnaha aan lahayd dariska oo lagu qabanayo dhowr iyo intaas 100,000 goobood macnaha ma aha. sida aan la socono doorashada Soomaaliya waxay hadda waxa u aasaasan inay ka dhacdo ilaa 6 magaalo 6 state. waa la qaban karaa si macnaha dib ugu dhaqsiyaha badan. Puntland aqalka sare maalin ay waxay soo saartay 12 senator oo maalin qura. marka 217 oo lower house-ka waxaan aaminsanahay aniga haddii daacad laga yahay in la qaban karo bil muddo ka yar. dhanka dhaqaalaha dalka horteen anaga leh cid Soomaaliya dalkan la leh ma jiraan.
deeqbixiyaasha kuma xujey karno haddii aadan lacag bixinina ma qabanayno doorashada dalkeena waxaa lagu qaban karaa lacag runtii aas leeyahay waxay la eg tahay hal bil ee dekada macnaha cashuurta laga helo marka haddii daacad laga yahay dhaqaale in la sugo oo waqtigii loo lumiyo oo runtii habsan u dhaco macnaha intaas la eg waa laga marmaa marka aniga waxaan dhihi lahaa way qabsoomi kartaa muddo ka yar ilaa iyo November maanta ay tahay 22 waxaan aaminsanahay October ay tahay 22 November 22deeda inay dhammaan karaan aqalka hoose oo inta la gaarin January dalku uu yeelan karo madaxweyne marka yaan xujo looga dhigin oo yaan la isku xirin lacag baa naga maqan sida awgeed dalkeena macnaha doorasho kama dhici karto runtii waxa warkaa taas macnaha mas'uuliyad daro farxan marka aad fiirisaan qoraaladii ugu dambeeyay oo aad soo saarayseen oo siyaasadda Soomaaliya xaaladeeda aad ku fiirinayseen doorashooyinkii la soo marana aad eegto oo kuwii hore u dhacay aqalkii sare iyo qaabkii loo maareeyay marka aad fiiriso ma tahay wax fudud in aqalka hoose si fudud loo qaban karo wax badan ay hagaagi karaan sida loo sahlanayo dadka qaar suuragal ma noqon kartaa markii waa runta markaad fiirisid dhacdooyinkii hore dhacay si loo maamulay waqtiga qaatay ma ahan wax sahlan in si degdeg ah loo qabto doorashada aqalka hoose sababta dhowr sababood ayaan u leeyahay markaad fiirisid aqalka hoose kursigiiba halkii kursiga waxaa dooranaya 100 qof intaa waxaa kasii dheer soo xulistiisa oo jufooyinka hoose kursigaas isla leh ayaa waxaa ka taagan muran fara badan sidii u kala qaybsanayaan 100 u kala qaadanayaan marka in ayaga laga keeno ay soo diyaariyaan 100 halkii kursi ayaa wuxuu qaadan waqti dheer marka waa taas waa mid xareynta ergadii ayadoo wixii waqti kala waay oo u baahan qarash fara badan oo ku baxay hooygoodii cuntasiintoodii ammaankoodii teeda kale waxaa kaloo ayadana ka sii horeysa in guddiga doorashada head state ay xaqiijiyaan in dadkan la soo xulay ay yihiin ergo si dhab u matalaysa jufadan iska leeyihiin waxaa kaloo ayadana processka ku lug leh in ay xaqiijiyaan odayaashan inay sax yihiin kuwii saxda ahayd yihiin marka arrintu way adkaanaysaa xaqiijin iyo hubin ayaa waxay qaadanaysaa waqti inta aan la gaarinba processka in wax cod la bixiyaba marka arrintu way dheer tahay way adag tahay qarash fara badan oo ku bixi karaa waxaan laga yaabaa hadda Soomaaliya markii la fiiriyo hadii la helo dedejiyo in dib ay isku yimaadaan madasha oo wadashi qaran oo dib u eegaan wixii ku heshiiyeen oo ay si duruuftan loogu adjust gareeyo loogu maartay xaq la hagaajiyo in doorasho lagu qabto wuxuu u baahan tahay in qodobada qaarkood dib u eegaan ay wax bedelaan mar qaarkood oo qaarna arki kara inay tahay mid hufnaantii doorashada maartay dib u wiiqaysa oo dib loogu laabanayo doorashadii 16kii marka arrintu ma sahlana waqti dheer ay qaadanay lacag fara badanna way ku bixaysaa marka saas ma sahlana ay sheegayaan dadka qaarkood gudiyada xataa ruuxooda markay jadwal sameeynaa waa arrin oo ay rabaan inay ku qanciyaan darafyo kala duwan oo ugu muujiyaan in processka uu socdo ay xaraka jirto laakiin arrintu waa arrin dhib badan waaye shaqadan aad baad u mahadsantihiin Professor Liibaan Xuseen Ciise Farxaan Isxaaq Yuusuf iyo Ibrahim Cumar Mahad alle sidaad uga qayb qaateen barnaamijka faaqidaada toddobaadka